السلام عليكم. sidoo guurka u shaqeyn doona nishigiya qof cusub hadaa soo geliyo waxaa ka wada qof horeba uu ka baxay meesha qof buu helay qofkaas wuu xarooday so qof cusub baa soo gelinaya mar walba qof cusub soo geliyo ogaada qof horeba tagay so hadda qof cusub baa soo bixinaya aan ogaadana aniga keligay bas baa sameynooya hadda oo waqti badan bay igu qaadanaysaa inaad dad iska soo gelgeliyana ma rabi dad badanna lama hadli kari ilaa kuwii hore u helo zawaaj their match connection kooda markaa u helo markaas baa qof cusub soo gelin karaa so please waa ii supportaan waa u jeedaa maasha allah waa ku mahadsantihiin iina sii sabra and then also videoyaasha soo geliyay ma delete gareynayay qofka haduu qof helay maasha allah wuu helay laakiin I'm building a brand magac baa sameynaya magaca sameynayana videoyaashaas muhiim bay u tahay because testimony hadda laba markii isguursato oo ay raalli ku yihiin videoga baa soo bixinaya waqtigii ay geliyay iyo qofkaas testimony-ga waa isku xiraya insha Allah so haddana wax kala noo soo socda insha Allah nila soo war socodsiinaya markuu ilaahay fuliyo once it's complete I'll let you know the next step inshallah but just ogaada marka video soo geliyo qof baa meesha ka baxay and then message-diina waa haya waana ka soo jawaabi doona insha Allah isi suga also hadda video pin gareeyo pinka ku qabto that means qofkaas wili cidna uma helinin hadda hal video ba pin page ku jira gabadhaas wili qof uma helinin match gareeso so insha Allah gabadhaas daarabtiina waa la soo xiriiri kartiin any video pin gareeyo waxa ka wada qofkaas wili match muu helinin laakiin inta kale already we heleen laakiin ma tirtiriyo videoyaasha magac ma ku jiro qofkii si lagu helo ma jiro so aniga videoyaashaas it's for my record keeping so inshallah sidaasna ogaada waana ku mahadsantihiin inshallah ilaahay khayr ha nooga dhigo waxa soo wadno assalaamu calaykum